الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليك دمانتين وايد السلامي هلكا iga daawanaysa waa janaalkayga muslimir official bari janaalkayga daa ku cusubtahay subscribe like comment share inta waxay iga ilaaw insha Allah ta'ala isku soo noqdo wanaagsan waxa idin leeyahay waqtiga haydin wacnaada intay maalin tahay maxaan ku dhahay waqtiga ha wacnaada intay habeen intaan waxay leeyahay qof walba waqtiga u taan ku salaamaya insha Allah ta'ala ilaahay inta xanuunsanaha caafiyo inta caafimaad qabta Allah u siyaadi inta awlaadaysa ilaahay siyaan leh inta awlaadaysa ilaahay u barakeeyo insha Allah ta'ala waxaan halkan oga hambalyeynaya walaashay nimca haddi waxaan ku leeyahay baay macaanta hambalyan ku leeyahay hambalyo guusha aad gaartay aad ugu faraxsanaan ku leeyahay nimca haddi maxaan ku dhahay London ay imaanaysaa la dhahay insha Allah ta'ala fiisaheedii wax walba way heshaan ku dhahay maxaan ku dhahay sigootisteeda xataa waxa loogu sameeyay Muqdisho ayay sigootinteeda maanta ka dhacday marka waxaan ku dhahay way soo baxaysaa leeyahay Britain mise Britain labada mid ay soo duulaysaa leeyahay Ingiriiskan u soo socotaa insha Allah ta'ala dad cadaan ayaa guushan gaarsiiyay laba wiil bas aan ka mid labada wiil oo guusha gaarsiina waa laba nin oo cadaan oo kan dib u shaqeeyaan waaye insha Allah ta'ala horta waxa waaye wax lagu waa un hees iyo maxaan ku dhahay music iyo waxyaalo xun leh waa kullee maxaan ku dhahay laakiin insha Allah ta'ala kullee guusha ayada ay habiga ku tahay aniga oo ugu faraxsanahay hambalyan kullee abaay macaanta anaga maxaan ku dhahay soo dhaweyntaada baan diyaar u nahnay kuwi ku soo dhaweyn lahaa un baan nahnay anaga insha Allah ta'ala anaga kaaga soo horeeyay magaalada Ingiriiska insha Allah ta'ala welcome alle abaay macaanto marka insha Allah ta'ala gabadhan maxaa way halka heesa maxaan ku dhahay meel walba sitaan ku dhahay horta ilaahay markuu fajr ku furayo maxaan ku dhahay qofna kaala ma tansanayo qof uu kaala tashana ilaahay unta ma jirto gabadhan heesta goortay qaaday ma dhaweyn haddana ma aha maraan fogeynay qaaday heesteedina hadda waxay ilaahay ku idmay leh inuu maxaan ku dhahay dad cadaan ee heesta maxaan ku dhageystaan ay ka helaan ay u faafeen maxaan ku dhahay share out ku sameeyaan oo qof kasta uu iska soo duubo qof kasta uu ku soo heeso ay u noqotay insha Allah ta'ala heesha maxaan ku dhahay dadka waxay ku jeclaadeen waxa waa saddex luqad waa Carabi iyo English waa Carabi iyo English ma afar luqad waa Carabi iyo English iyo Swahili iyo Soomaali waa dadka marka taas ay ku jeclaadeen waa afar luqad ay ku heesaysaa marka waxa maxaan ku dhahay guusheeda ka dambeeyana waxa way laba wiil oo kambani u shaqeeyaan ayaa ka dambeeyaan midna waa Mareykanka midna waa Ingiriiska labada wiil midna waa reer Mareykan midna waa reer Ingiriis la dhahay insha Allah ta'ala ayagaan subxaan ku dhahay fiisaha in inta imaado in Ingiriiska imaado waxa ka dambeeyana waa ayagaan leeyahay insha Allah ta'ala baay macaanta hambali ayaan hawada ku soo marinayaa hambaliyo kun iyo kow jeer hambaliyan ku leeyahay guusha aad gaartay oo ayaan kugu hambaliyeynaya insha Allah ta'ala horumar intan ka sii weynaan ku sii rajeynayaa anagana waxaan leenahay kuwi ku soo dhaweyn lahaa oo meeshan kaaga soo horeey oo soo dhaweyn ku sameyn lahaa anana maadaama xagga sagootin ma sha Allah qurux badan nagaaga sameeyay magaalada Muqdisho intana waxaan ku leenahay soo dhaweyn ma sha Allah aad ku faraxda anagana waan ku sameeynaa insha Allah ta'ala waana ku wada joognaa bari mise saadan waqtiga soo baxday insha Allah kulli bixitaankeeda diyaar waayaa la dhahay soo dhaqaaqitaankeeda baa dhiman la dhahay ay soo bixaysan baa dhiman laakiin sagootinteedii iyo xafladeedii sagootinta waa loo wada sameeyaa la dhahay wixii dhan waa loo wada sameeyaa la dhahay bixitaanku baa u dhimanaa la dhahay marka maxaan ku dhahay fiisiin waa loo ogolaaday waana loo diray maxaan leeyahay hambali aan leeyahay walaashay macaan dad Soomaali iyo dad ajaanib way ka dambeeyeen inkastay laakiin laba wiil ajaanib laba wiil cadaan oo midna Mareykan uu joogo midna Ingiriis uu joogo ka dambeeyay bas insha Allah ta'ala xabiibti waxaan ku leeyahay hambali adinkana walaashay hambaliyada oo loo soo diro maxaan ku dhahay qofka walaalkaaga guusha uu gaaro waa lagu la farxaa laakiin laga manaxo maxaan ku dhahay Soomaali waxa waa inta qof walaalkaaga guusha uu gaaray inaad u faraxdid waa wax wanaagsan oo dhiirigelin aasiisid maadaama anaga Soomaali aan nahna oo heesteeda maxaan ku dhahay gabadhan mar hore ay qaaday mar hadda ay qaaday oo anaga wax shar aad u sameeyo wax maxaan ku dhahay hawada u galiyay ay weystay oo hadda dad ajaanib u galiyay insha Allah ta'ala ina kula faraxdaan oo hambali u dhahdaan inkastay laakiin waxaan ay heestahay wax fisq ay tahay oo wanaagsan ay tahay laakiin sida ayada ay habi ku tanbaa anagana habi kula nahna because wax kale oo dhihi karna ma jirto insha Allah ta'ala sida ayada habi ay ku tanbaa anagana habi kulana xabiibti hambali kun iyo kow jeer hambaliyan ku leeyahay insha Allah ta'ala walaalahayga qaaliga dinkana hambalidu raaciyo waa maxaan ku dhahay waa fajr ilaahay horta u furay fajr qeyr qab ilaahay duu ku furay maxaan ku dhahay kaala ma tashanay qof uu kaala tashanayna ma jirto ilaahay ba maxaan ku dhahay fajrkeeda meeshaas ooga furay iyo irsaaqadeeda ilaahay ooga furay TikTok maxaan ku dhahay ayada saa u dhex wareegaysa meel kasta ayada dhex mareysaan ku dhahay TikTok hadda waxay mareysaa
والله بحان كده 300 way gaartaa u maleynaa habeen dhaxas maraan garaa 300 something way mareysay TikTok leetay deeysan laakiin aniga malihina waa la sheegay laakiin war fanaaniinta cadaanka maxaan ku dhahay heesteeda isku maxaan ku dhahay xaflad bahdeeleen heesteeda daaranayaan oo isku duubayaan marka xabiibtii waxaan ku leeyahay hambalyo guusha aad gaartay 1 jeer hambalyaan ku leeyahay hambalyo marka insha Allah ta'ala walaalahayga ninkan waxaan ilaa walaashin u soo hambaliyeeyo war cadaanka isku soo duubay cadaanka heesta laakiin waxa way ku jeclaadaan dadka waa af carabi iyo ingiriis iyo sawaaxili iyo waxa way Soomaali way waa marka af sawaaxili ingiriis iyo af Soomaali iyo carabi way marka dadka halaasan bay ka jeclaadeen maxaan ku dhahay hawada u gashay intay heestan goortay qaad hadda ma yaani nimcahabi heestan goortay qaad hadda ma walaa TV maxaan ku dhahay oo magaceeda laga faafinayo TV Swedish oo magaceeda laga sheegay xalay xataa waan arko Swedish oo magaceeda laga sheegay xataa xal waan daawday waxaan ku leeyahay xabiibtay hambal yakun koo jeer insha Allah ta'ala walaalahayga qaaliga idinkana waxaan leeyahay khayr badan aan rajaynaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh